بسم الله الرحمن الرحيم وقيبتي لبات عشركي كوساب سنة غازكا لابجيحة iyo boog caloleedka waan idin soo gudbinay dhowr maalmood ka hor haddii aadan daawan qaybtaas waa muhiim inaad ku laabatid si aad u fahantid waxyaabaha badan aan kaga hadlayno qaybtan labaad qaybtii hore waxaan kaga soo hadalnay waa maxay xanuunka gaaska waxyaabaha keeno noocyada uu kala baxo astaamaha lagu garto iyo siyaabaha loo baaro iyo xanuunada lagu qaldo qaybtan labaad waxaan ka hadli doonaa siyaabaha looga hortago siyaabaha loo daaweeyo dhibaatooyinka gaaska laga dhaxlo haddii aan la daaweyn iyo talooyin guud oo muhiim ah inta aan u gudbin daaweynta waa inaan horta saddex qodob aan isku waafaqnaa oo ay qof walba inuu fahmo ay muhiim tahay qodob koowaad waa in daawadu ay ku xiran tahay nooca gaaskaaga sidaan qaybta koowaad ugu soo hadalnay gaasku uu noocyo badan yahay waa inaad ogaataa gaaskaaga nooca uu yahay daawaduna waxay ku xiran tahay nooca gaaskaaga midda labaad gaas walbo looma qaato daawo waxa kaliya oo dhakhaatiirta isku waafaqsan yihiin meel walba dunida ha ka joogaan waa in daawo loo qaato gaaska nooca bakteeriyada ay keento ama jeermisyada kale ay keenaan oo boogta caloosha ku sameeyo wixii ka soo haray siyaabo kala duwan ayaa lagu daaweyn karaa marmarka qaar daawo ma loo baahdo qodobka saddexaad waa in ka hortagga xanuunkan uu ka faa'iido badan yahay daaweyntiisa sababtan waxay tahay jirka bini'aadamka wuxuu u samaysan yahay qaab wixii dhaawac gaaro ama dhibaato soo wajahdo inuu iskiisa isku daaweeyo ama isku baaniyo waa nidaam aad u habaysan oo ay ka muuqato wax walba inay isku dheelitiran yihiin tusaale ahaan gaaska hadda aan ka hadlayno meelaha ku dhaco waxaa ka mid ah caloosha waa xubinta u qaabilsan jirka dheefshiidka wax kasta oo qofka bini'aadamka uu cuno caloosha ayaa la geeyaa halkaas ayaa lagu shiidaa su'aashu qofka isweydiin kara waxay tahay calooshu iyadu ma ishiido maxay isku shiidi laadahay jawaabta waxaad ka dareemaysaa in nidaamka dheefshiidka jirkeena uu yahay nidaam aad iyo aad u heersareeya ilaa maantadan inta laga ogyahay ay xadidan tahay waa nidaam aad u kontroolan waxyaabaha ay caloosha u adeegsato dheefshiidka waa waxyaabo loogu talagalay heer gooni inaysan ka sara marin heer loogu talagalay inaysan ka hoos marin looguna talagalay inay cunada kaliya shiido caloosha waxaa ku jira qanjiro sida arki doono qanjiradaas u xilsaaran inay kontroolaan dheecaamahaas la soo deynayo heerarka loogu talagalay inaysan dhaafin si uusan jirka dhaawac isku gaarsiinin taas waxaad ka dareemaysaa daawooyinka dabiiciga aan ka hadli doono qaabka ay jirka u caawiyaan xataa daawooyinkan kale oo kiimikada ah oo la isticmaalo ma dhaafsiisno waxtarkooda inay jirka ka shaqaysiyaan ama ku booriyaan inuu isdaaweeyo saddexdaas qodob waa muhiim horta inaad marka hore fahantid intaan u gudbin daaweynta markii laga hadlayo waa muhiim inaad ogaatid sida uu gaaska ku yimid marka hore sidee loo daaweeyaa gaaska waxaa loo daaweeyaa saddex si kama baxsan kow maadaama aan soo sheegnay dhibka ugu badan ee gaaska keena inay tahay aashitada ama asidka inuu dhaawac ku sameeyo lakabka caloosha daawooyinka badanaa la qaato waxay xoogga ay saaraan sidii asidkaas loo yareyn lahaa ayagaa marka waxay kala leeyihiin dhowr nooc waxaa loo yaqaanaa antacid oo macnaheedu tahay lidka aashitada ayuu lid ku yahay ilaa dhowr daawo ayaa ka mid a waxaa ku xigo daawooyinka asidka yareeyo ee loo yaqaano H2 blocker haddii aad soo daawatay filimkii hore waxaan ka soo hadalnay in uu jiro dheecaan ama hormoon loo yaqaano histamine oo ku boori caloosha inay soo deyso aashita badan daawooyinka dheecaankaas ayaa shaqadiisa ay yareynaysaa saas ayaa waxaa lagu bixiyay histamine 2 blocker waa daawooyin tiro badan waxay soomaalida aad uga taqaanaa kiniiniga la yiraahdo Zantac groupka saddexaad waa groupka uguna awood badan haddana badanaa dunida isticmaasho waa groupkaas loo yaqaanaa proton pump inhibitor ayagana sidaas oo kale waxay hoos u dhigaan dheecaanada aashitada keena hoos u dhigaan groupkan waxaa ka mid ah daawooyinka badanaa la isticmaalo omeprazolka ka mid ah esomeprazolka ka mid ah pantoprazolka ka mid ah way noocyo badan yihiin marka saddexdaas group aan soo sheegay kulligood hawshooda waxay tahay inay aashitadaas ay kontroolaan groupka labaad ee ku xigo hawshooda waxay tahay
inay lakabka caloosha saaran oo alle ugu talagalay inuu ka difaaco aashitadan inay kubciyaan ama xifdiyaan ama ilaaliyaan ama ay ka shaqaysiiyaan qanjiradii lakabkaas loogu talagalay waa daawooyin gaaska lagu daaweeyo waxyaabo kale oo loo adeegsan karaa qaabka saddexaad ee loo daaweeyo gaaska waa qaabkan ah la dagaalanka jeermiska keeno gaaska iyo boogaha caloosha sidaan hore u soo sheegnay markaan ka hadlayno waxyaabaha gaaska keeno waxa ugu horeeyay jeermiskaas waxa ugu horeysay bacteria loo yaqaano H pylori bacteriadaas ayaa sabab u ah gaaska badanaa ku dhaco dadka bacteriada markii la daaweynayo waa qasab in daawada gaaska qofka la siinayo loo raaciyo daawo antibiotic oo bacterias loogu talagalay inay disho saadarteed maadaama ay tahay bacteria dhib badan waa in qofku qaato ugu yaraan 2 daawo antibiotic oo 2 qaab oo kala duwan u shaqeynayso taas ayaa marka waxay noqonaysaa 2 daawo antibiotic oo kala duwan iyo daawo aashitada yaraysa waa 3 daawo 3 daawo la isku daray ayaa la siiyaa waxaana dhaqaatiirtu yaqaanaan daawada ciribtirka bacteriada H pylori waa daawo isku samaysan qaab gooni loo qaatay jirto sidee looga hortagaa gaaska waxaa looga hortagi karaa cunadan ka bilaabayna cunada waa waxyaabaha ugu muhiimsan qofka inuu habaysto si looga hortago xanuunka gaaska marka ugu horeysa qofka waa inuu nadaafadiisa ku dadaalo sababta nadaafada uga dhiga waxay tahay bacteriada gaaska keento waxay ku gudubtaa nadaafad darro cunada wasakhaysan biyaha wasakhaysan gacmaha dadka wasakhaysan intaas buu ku gudubtaa marka saadarteed waxaa la yiraahdaa waa inuu qofkana gacmaha saabuun iskaga dhaqaa gacmihiisa ay nadiif yihiin intuusan cunada cunin ka hor ayn cunada uu cunayna taa cunna si fiican loo soo kariyay oo dab la mariyay si ay uga hortagtid bacterias inay jirkaaga ay gasho qodobka labaad oo isla cunada ku saabsan waa inuu qofka iska ilaaliyaa cunada uu dhibsanayo dadka isku mid maahan qof cuno dhibsada qof waxa laga yaabaa inuu kiraahdo cunadaas aniga gaas ugu makiciso adna ay kugu kiciso saadarteed waxaa muhiim ah inaad ogaatid cunooyinka gaas kugu kiciyo oo la iska ilaalinayo laakiin waxa la isku waafaqsan yahay ilaa 4 qaybood oo cunno ah in dadka gaaska qabo ay u daran tahay waa cunada kulul sida basbaaska oo kale 2 waa cunada dufanka iyo saliidda ay ku badan tahay iyadana dadka gaaska qabo way u daran tahay 3 cunada shiilan oo saliidda lagu shiilay sida baradhada la shiilay oo kale hilibka la shiilay oo kale waxyaabahaas kale dadka gaaska qabo way u daran tahay iyo cunada aashitada ka samaysan sida citrus wax ka samaysan sida liin dhanaanta kale liin balbalmada kale waxyaabaha aashitada ka samaysan sida mesela khamiirka kale oo cunada lagu daro nooca ugu dambeeya afraad waa nooca cunada warshada soo martay cabitaanka warshadaysan kuwa gasacadaysan maxay leeyahay maadaama lagu soo daro waxyaabo preservative ama xifdiyo qofka waa inuu iska ilaaliyo waxyaabahaas waa muhiim qodobka saddexaad ee ku saabsan cunada waa inuu qofka qaabka uu cuntada u cuno waa inuu bedelo oo ka dhigo qaab uusan gaas ku kicinin qaabka muxuu yahay waxaa la yiri dadka badanaa gaaska ka sheegto gaajadan way u daran tahay directan way u daran tahay maxaa la sameynaa marka waxaa la sameynaa qofku wuxuu cunayaa cunno yar laakiin dhowr jeer u cunayaa sida caadiga dadka 3 jeer wax cunaan quraac qada casho Soomaan adiga saas kuma anfacayso quraacdii wax yar cunaysaa marka xoogaa joogtid quraac labaad fudud qadada wax yar cunaysaa casriyada ama galabtii wax yar cashada cunayra cunaysaa oo ma badsanaysid taas waxay ka hortagaysaa inaadan dhargin iyo inaadan gaajoon ay ka hortagaysaa waxaa kaloo iyadana muhiim ah in waxa cunada marka cunaysid aad si fiican u ruugtid cunada si fiican loo ruugo waxay ka caawinaysaa calooshaada inaysan dheefshiid badan aan la marsiinin oo aashita badan aan la soo deynin saadarteed way u sahlanaanaysaa qaabka saddexaad oo muhiimkeedan waxa waaye cunada marka cunaysid biyaha ku cabin ama cunada marka cuntid kadib ilaa nus saac ka soo wareegato wax biyaha cabin dadka ayaa waxay leeyihiin dabci ah inay cunada iyo biyaha isku cabaan taas waxaa la arkay in dheefshiidka ay cilado badan u keento qodobka afaraad oo cunada qaabka loo cunayo ku aadan waa in marka cunada aad cuntid kadib aadan jiifsanin taas waxay keenaysaa in dheefshiidkaada ay khalkhal geliso waxyaabo badan waxaa jira qofka markuu cuno loogu talagalay inuu sameeyo
وأن قرال كفها فاهني وأتكهلي كرتيد ويب سايت daawadu iyadana waa arin muhiim ah sida hore soo sheegnay waa waxyaabaha keeni karo xanuunka gaaska hadii aan si fiican looga fakarin talada ugu horeysa waa inaadan isku qorin daawo dhakhtar ha isku noqonin daawo ha iska soo gadanin sababta asaas u leeyahay waxay tahay daawada la iska qaato adigoonan ogeyn inaad u baahan tahay in kale waxay keentaa dhibaatooyin aad u badan qaabkii dabiiciga ah oo jirku u shaqeyn lahaa ayaa khalqal gelinaysa marka inaadan daawo isku qorin waa muhiim waxa kale oo muhiim ah in aadan daawada si joogto ah aadan u qaadanin tusaale ahaan qofku xanuunsaday dhakhtar uu tagay daawo loo soo qoray daawadii alxamdulillah uu ku fiicnaaday markuu ku fiicnaaday wixii maalintaas ka dambeeyay daawadaas loo iska soo gataa 9 bilood daawadan wada u leh yaa ku qoray dhakhtar hadda qoray ku fiicnaaday waa iska gadan jiray daawada la iska soo gato ee daawada la joogteeyo ilaa dhowr dhibaato ay keenaan dhibaatooyinku waxa ka mid ah qofka calooshiisa iyo mindhicirkiisa alla wuxuu ku abuuray bacteria dabiici ah oo dib aanan keenin oo loo yaqaano normal flora faa'iidada bacteriaas waxay tahay inay jirka ku caawiso dheefshiidka waxyaabo badan oo bini'aadamka uu u baahan yahay ay ku caawisaa bacteriadaas marka hadii aad daawooyin aan loo baahnayn aad qaadatid ama daawooyinka dadka joogtay aad ka mid tahay bacteriadaas way baaba'daa ama way dhimataa halkaas waxa ka yimaado xanuuno badan ka yimaado shuban ka yimaado calmajir ka yimaado waxa ka yimaado wax la yiraahdo mal absorption oo ah cunadii qofku uu cunay jirkiisa ma ka faa'iideysanayo saxarada raacaysa markii la shiido taas waa qodobka labaad oo iyadana muhiimka waxa waaye dheefshiidkii dabiiciga ahaa oo alla ugu talagalay ay daawadan khaldaysaa hore soo sheegay caloosha qaabka ay u shiido cunada waa qaab aad iyo aad looga taxadiray hadii marka daawo aan loo baahnayn qofku uu joogteeyo nidaamkii ama qaabkii loogu talagalay in dheefshiidka loo sameeyo ayaa wareeraya midda kale oo idin saddexaad waxa waaye daawo kasta waxay leedahay waxyeelo iyo side effects daawada aad joogtaysid waxay ku keeni kartaa waxyeelo aadan ogeyn inay kugu hayso oo hadhowtii dhibaatooyin badan oo hor leh ay ku horseedi kartaa tusaale ahaan xanuunka gaaskan maanta ka hadlayna daawooyinka ugu badan oo hadda misuse-ka lagu sameeyo ama sida qaldan loo isticmaalo waxa kamid ah daawada omeprazole la yiraahdo maadaama ay tahay daawo awood leh qofkan wax iska garto waxay dadka badan ay sameeyaan way iska qaataan iska joogteeyaan daawadan waa daawo loogu talagalay markay ugu badato inuusan qofka qaadan 8 isbuuc ka badan ilaa xaalada dhif mooyee maxay keeni kartaa daawadan hadii la joogto waxay keeni kartaa oo la arkay in lafaha dhabarka iyo lafaha miskaha ay daciifiso ay ku rido qofka wax loo yaqaano lafa burbur oo hadhowtii qofka hadii uu kufo ama dhaawac yar uu gaaro laftii ay bash ay dhihi karto ay kala jibi karto oo halkaas ay ka iman karto cilad waa inta hadda la ogyahay marka sadarteed waa muhiim in daawadana aan la iska joogteenin daawo aad u baahnayn in aan la qoran ama aan la soo gadan mid ugu dambayso oo dhibka daawooyinka noocan ay keeni karaan waxay tahay wax loo yaqaan resistance oo adkaysi daawadii ayaa jirkaaga la qabsanaya oo adkaysanaya saa rabtid u qaad waxba ka tarimayso dhiblay ku kordhinaysa wax faa'iido aad ka helaysid male waan arkaysaa dadka badan oo ku dhahay daawadan ku fiicnaan jiray laakiin hadda wax miga tarto sababta ay kaaga tirlaada waxay tahay jirkaagii ayaa la qabsaday adkaysi baa u yeelatay taas waa muhiim qodobka saddexaad oo qaybta daawada aan soo husgeliyay waa mid ku saabsan daroogada iyo daawada ma kala fogo daroogada sidaan hore u soo sheegnay qaybtii koowaad ee casharkeena sida sigaarka khamriga qaadka iyo waxyaabaha maandooriyaasha la yiraahdo waa waxyaabaha ugu horeeyo oo keeno in caloosha ay dhaawacaan dheefshiidkani ay waxyeello gaarsiiyaan sadarteed waa muhiim qofka inuu waxyaabahaas ka fogaado mar kastaba caafimaadka u maroono qodobka saddexaad ee ka hortagga ah waa dhinaca walwalka stresska fakarka oo asagan aan sheegnay inuu dadka badankood oo gaaska ka sheegto oo u keeno xanuunkan stresska ama walwalka ama fakarka waa dhibaato qofku uusan ka hortagi karin ama iska ilaalin karin laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo lagu la tacaalo qofka inuu isdejiyo oo uu ku dadaalo siduu u maareyn lahaa dhibaatadan soo wajahday waa hadafka ugu horeeya oo la rabo
qofka gaaska inuu kaga hortago dhinaca stresska. midda labaad waa inuu qofka ku dadaalaa cibaadada. sababta qodobkan u doortay waxay tahay salaada iyo quraan akhriska waxaa la ogaaday inay tahay daawada ugu waxtarka badan xagga stresska markii laga hadlayo. qoraal ku saabsan arrintan oo aad ugu faahfaahiyay wixii cilmi baarayaashii ay ku arkeen ama ay ka yiraahdeen aan ku soo koobay. cibaadada noocyadeeda kala duwan waxaa la arkay qofka bini'aadanka inay balance gareyso dhacanada qofka bini'aadanka ee dhinaca stresska ah. xanuuno badan oo lagu daaweeyay waxyaabo kale oo lagu daaweyn waayay ayaa la arkay. halkaas ayaa waxaa ka timid fikrad la yiraahdo faith based management oo macnaheedu ah ku daaweynta iimaanka. سادرتد استرس كي والولك وإناد دنعس داو كرادسة هدي أد وح كهلي ويسد أما أد كورتد وإناد لكاشتا أما أد لتشتا دختر هدي وكو قري كرو داو أرنتاس كعاوين كرت محايا لو حان أرجني ضد بدن أو دبكو ذو يهيكلية والولكاس ما أنتي لقد داوي ما أنت سيودن بيسي حنونك جاسك وحنوكو حيو سد بيعي اسكو داوي waxaan hore uga soo hadalnay daawooyinkii kiimikaalka ahaa laakiin hadda waxaan ka hadli doonaa si dabiici ah sidee loogu daaweyn karaa xanuunka gaaska. qaabab badan iyo cunooyin badan ayaa jira oo ay dad badan isticmaaleen waxna isaga garteen, laakiin waxaa muhiim ah inaad ogaatid in hebel wixii uu isku daaweeyay inaysan qasab ahayn in adigana ku daawoodo maxaa yeelay dadka bini'aadanka jirkoodu wuu kala duwan yahay. laakiin halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 8 daawo dhareed ama geedo la isku waafaqsan yahay in gaaska lagu daaweeyo. cilmi baaris ahaan lagu arkay in gaaska noocyadiisa kala duwan ay wax ka taraan. midka ugu horeeyo waa malabka. malabku waa daawo dabiici ah, xanuuno badan lagu daaweeyo. gaaska wuxuu ku jiraa xanuunada lagu daaweeyo. malabka noocyada kala duwan ee gaaska waxbuu taraa. nooca laabjeexa, nooca boogta iyo nooca gastritis ka yiraahdo ah gastrikada caloosha ku dhacdo. saddexda noocba waa loo isticmaalaa. dad badan oo daawooyinka ka noogay oo malabka ku daawoobay ayaa jira. qaabkee malabka la iskugu daaweeyaa? malabka waxaa la iskugu daaweeyaa in aad hal qaado oo malab saafi ah aad ku tarsatid koob biyo nadiif ah, markaas aad isku qastid. subaxii markaa hurdada ka soo toostid adigoo waxba aadan cunin waa inaad cabtaa oo joogtaysaa. taas waxay kugu caawinaysaa in malabku uu yareeyo aashirtada caloosha. waxay kugu caawinaysaa lakabkii caloosha dhaawac gaaray inuu bogsiiyo. waxay kaloo kugu caawinaysaa inuu dheefshiidka ka caawiyo. waxay kaloo kugu caawinaysaa in aad nafaqo iyo waxyaabo kale oo muhiim ah aad ka heshid. malabka waa daawo dabiici ah, dad badan isku waafaqeen, qoraallo badan aan ka diyaarinay oo aad ka heli kartid isla website-ka. midda labaad waa boorashka. oatmeal la yiraahdaa. boorashka oo lagu quraacdo iyadana waxay ka qayb qaadataa ka hortagidda gaaska. boorashka waxaa la ogaaday inuu dadka gaaska qabo marka ay ku quraacdaan inuu ka caawiyo xagga dheefshiidka, caloosha socodkeeda, xagga boogaha caloosha isagana wax buu taraa. midda saddexaad waa caanaha. caanaha ka hadlayo waa caano fresh ah ama caano dhay ah. kama hadlayo caanaha suusaca ah, kama hadlayo caanaha fadhiga ah ama garoorka ah, kama hadlayo caanaha saafiga ah oo la barxay subag ama saliidana laga qaaday. waxay hoos u dhigaan aashitada caloosha. saa darteed waxaa la yiraahdaa qofku markuu gaas dareemo ama laabjeex uu dareemo waa inuu galaas caana oo qabow uu cabaa. taas waxay ku caawinaysaa acidkii caloosha inay neutralize gareyso ama ay si dabiici ah ka dhigto ama yareyso. midda afraad waa sanjabiilka. sanjabiilka waxaa la arkay inuu waxtar badan u leeyahay boogaha caloosha. sidee loo isticmaalaa? sanjabiilka aan ka hadlay horta waa sanjabiil qoyan. nooc badan oo wadanka hadda laga helo waa nooc qallalan. noocaas ma noocaan ka hadlay. noocaan ka hadlay waa nooc qoyan oo la dhiijin karo oo dheecaanka leh. sanjabiilkaas dheecaankiisa qoyan iyo waxaa la isku darsadaa hal qaado malab saafi ah la isku darsadaa waa la isku cunaa. waxaa la arkay bakteeriyada ama jeermiska keeno boogaha caloosha inay arintaas ay daawo tahay. sidaas darteed
sanjabiilku waa daawo dabiici ah xanuuno badan lagu daaweeyo qoraal faahfaahsan aan kaga hadalnay taasna dib ugu booqo website-ka midda shanaad waa toonta waxaa la isku waafaqsan yahay cilmi baarayaal badan ay daraasad ku sameeyeen toonta inay tahay cunada number 1 ama ugu horeyso oo la dagaalanto jeermiska bakteeriyada loo yaqaano H pylori oo dhibaatada ugu badan ee gaaska loo saariyo toontu waxay dishaa jeermiskaas waxayna ka hortagtaa boogaha gaaska intaas kaliya ma toontu waa jeermis dile number 1 ha ahaado bakteeriya ha ahaado fungus ama gooryaanada saa darteed waxaa la yiraahdaa dadka joogteeyo cunista toonta waxay ka badbaadaan xanuunada caloosha ku dhaco noocyadooda kala duwan qoraal faahfaahsan oo ku saabsan arintaas ee xanuunada lagu daaweeyo iyo qaabka loo daaweeyo iyadana waxaa ka helaysaa insha Allah website-ka ka helaysaa qodobka lixaad waa karootadu waxay yareysaa dhaawaca lakabka caloosha sababta maxay tahay karootadu sida ogtihiin waxa aad uga buuxo vitamin A vitaminka loo yaqaan vitamin A hawshiisu maxay tahay jirka bini'aadamka muxuu u taraa waxyaabo badan ayuu u taraa waxa ugu muhiimsan oo tara waxa kamid wax loo yaqaano mucosal immunity oo ah difaaca jirka khaasatan lakabyada jirka ayuu difaaceedu kordhiyaa wuxuu ka ilaaliyaa inuu dhaawac soo gaaro wuxuu ka ilaaliyaa hadii dhaawac uu yimaado xataa inuu repair gareeyo ama uu sameeyo ama uu hagaajiyo meesha dhaawac gaaray inuu dhayo sidaas darteed karootada dad badan ayaa waxay u isticmaalaan inay ku daaweeyaan xanuunka gaaska midda toddobaad waa geedka loo yaqaan dacarta waa geed wadankeena laga helo waxyaabo badan oo lagu daaweeyaa qoraal ku saabsan geedkan iyo waxtarkiisa aad ayaan hadda ka hor uga hadalnay iyadana aad heli kartaa haddii aad u baahatid dacartu waxay caawisaa dheefshiidka waxay ka hortagtaa gaaska waxay daawo u tahay calool fadhiga dacartu waxay subkisaa lakabka caloosha ayay subkisaa oo waxay ka ilaalisaa in aashitada caloosha ay dhaawac gaarsiiso dacarta sidee loo isticmaalaa badanaa dacarta waxtarkeedu wuxuu aad u bataa markii lagu darsado caanaha qumbaha ama biyaha qumbaha oo cad iyo dacarta ayaa la isku qastaa markii la isku daro waxaa ka soo baxo wax cabitaan oo kale ah cabitaankaas waxaa la isku waafaqay inuu daawo u yahay xanuunka gaaska midda sideedaad waa geedka loo yaqaan kabajka waa nooc ka mid ah khudaarta kabajka muddo fog oo ku aadan sanadkii 1950kii ayay ahayd mar dhakhtar u dhashay dalka Mareykanka cilmi baaris ku sameeyay ku ogaaday in kabajka lagu daaweeyo xanuunka boogta caloosha ay keento bakteeriyada H pylori muddadaas wixii ka dambeysay ilaa laga gaaray heerka maanta joogno daawooyinkan laga soo saaray kabajka waxa loo isticmaali jiray ku daaweynta xanuunadaas dhakhaatiirtuna way qori jireen qaabkii u qori jireen waxay kula talin jireen bukaanadooda rubac litir kabaj la shiiday kabajka waa la shiidayaa waxaa laga dhigayaa cabitaan rubac litir oo cabitaankaas ah inuu qofka 3 jeer maalintii u isticmaalo markuu cabo kadib 2 saac ku xigto inuusan wax cunaa uusan cunin oo sida u joogteeyo kabajka wuxuu ka mid yahay ugu horeeya cunooyinka lagu daaweeyo gaaska iyo boogaha caloosha ku dhaco halkaas waxa uga baxaynaa siyaabaha dabiiciga ah ee loo daaweeyo xanuunka gaaska waxaan galeynaa qaybta ku xigto waa dhibaatooyinka uu gaaska keeno dhibaatada ugu horeeya oo gaaska keeno waxay tahay wuxuu keenaa in qofka uu dhiig matago ama saxariis dhiig ay soo raacdo ama boogaha caloosha ku jiro ay dhiigaan taas waxay keentaa dhiigaridaas haddii aan la daaweyn iyadana waxay keentaa dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay howlgabka wadnaha saa darteed qofka hadduu xanuunkan uu qabo yuusan isku fiirsanin waa inuu iska daaweeyaa ama hab dabiici ha isticmaalo ama dhakhtar ha la xiriiro midda labaad waa nafaqo darro maadaama xanuunka gaaska uu ka hor istaago qofka inuu cuno waxaa jirkiisa ku yaraado waxyaabihii faa'iidada lahaa cunada laga heli jiray oo noocyadooda kala duwan leh taasi waxay keentaa nafaqo darro marka ay timaadane qofka waxaa hoos u dhaco difaaca jirkiisa waa qodobka saddexaad difaac yari ayay keentaa difaaca jirkiisa markuu qofka hoos u dhacane waxay keentaa inuu qofku u nuglaado xanuuno kale oo tiro badan waxaa kaloo jiri karo xanuuno sidooda loo yaqaano in gaaska ay la xiriiraan ama haddii aan la daaweynin ay keenaan dhakhaatiirtu waxay sheegayaan sababta loola xiriirinayo inay tahay in boogaha caloosha oo aanan bogsanin muddo intaa la-eg inay keeni karto in lakabka calooshu unugyadii lagu yiqiinay unugyo aan ahayn oo aan dabiici ahayn
inay isu bedelaan halkaasna ay ka dhashaan xanuun kansar ama xanuun buro inay ka dhalato saadarteed gaaska dhibaatooyin badan ayuu keenaa laakiin afartan ayaa ugu muhiimsan waxaana looga hortagi karaa in qofka uusan xanuunka isku fiirsanin waxaan ku soo gabagabeynaynaa qaybteena labaad cashirkii gaaska maanta talooyin guud talada ugu horeysa waxay tahay ogow garashada cudurku waa muhiim caadada aan leenahay waxay tahay qofku markuu isku arko dhowr astaan oo isleeyahay xanuunkaas waay inuu daawo raadsado waa muhiim in xanuunkaaga la garto waa muhiim in baaris lagu sameeyo waa muhiim in la ogaado xanuunada kale oo ekaan karo xanuunka gaaska talada labaad waxay tahay in xaaladaha ugu badan ee gaaska lagu daaweyn karo habab dabiici ah khaasatan haddii aadan awood u lahayn inaad dhakhtar booqatid ama meesha aad ku nooshahay uusan dhakhtar fiican joogin fadlan siyaabaha dabiiciga ah daawo ka raadi haddii aad isleedahay xanuunka gaaska ayaa ku hayo talada saddexaad ogow in cudurro kale ay la socon karaan ama ay keeni karaan xanuunka gaaska dad badan ayaa wax arkaysaa ku dhahayo xanuunka gaaska waa leegu sheegay daawooyinkiisu waan qaatay waxba iskaga garan waayay xanuunku waa sidiisii way ugu soo laabanayaan waa muhiim in la ogaado ma xanuun kale ayaa kuula wehliyo oo isagana daaweyn u baahan mase xanuun kale ayaa jiro oo gaaska isaga laftirkiisaba keenay oo gaaska haddii la daaweeyo xanuunkii kalena aan la daaweynin gaasku mar labaad kugu dhici karo waa muhiim arrintaas inaad iyadana aad ogaatid talada ugu dambeysa waxay tahay ogow daawada la joogteeyo ama la badsado sidaan hore usoo sheegnaba inay keeni karto dhibaatooyin hor leh oo qaarkood ilaa hadda waxay sheegaan dadka cilmi baarayaasha xanuunada aan la garan karin oo aan la aqoonin waa xanuunada badanaa ka yimaado waxyeelada daawooyinka intaas waxaa kusoo gabagabeynaynaa qaybtii labaad cashirkii ku saabsanaa gaaska waxaa laga yaabaa inaad su-aalo badan qabtaan ama aad faahfaahin u baahan tahay fadlan waxaa kusoo qori kartaa qaybaha aan soo dhignay fiidiyoyadan ee ugu horeyso bogga fiidiyoyada ee YouTube aan ku leenahay waxaa kaloo kusoo gudbin kartaa boggeena Facebook boggeena Google Plus boggeena Twitter boggeena Instagram aad ay u mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.